أنا مجيء دكتور رملة كلاي أما رملة محمد علي كلاي بقولك قفوات وجوه الرئيس إسبيتال كتيمادو إن باقشة الأختر كحون نقدونا فري ووحل عجه لقى مقعد دون هدو إله إدمه degmada wadajir ee gobolka Banaadir waxaa laga daafuray isbitaal loogu magac daray Olive Clinic kaasi oo ay daafurtay Dr. Ramlo Maxamed Cali Kalaay oo kamid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed isbitaalkan daafurkiisa waxaa ka soo qayb galay munaasabadii xariga loogu jirayay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya bahda caafimaadka qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale marsharaf kale munaasabada waxaa ka hadashay Dr. Ramlo Maxamed Cali Kalaay taasi oo faahfaahin ka bixisay isbitaalkan iyo waxyaabaha uu qaban doono Ramlo waa dhakhtarad dhinaca caruurta waxaana ay ka soo shaqeysay isbitaallo waaweyn ee ku yaala gudaha waddanka Soomaaliya waxaana haatan ay ka howlgelaysaa Olive Clinic oo markaasi ay tilmaamtay in laga helayo adeegyo caafimaad oo dhameystiran farmashiyihii qaybihii shaybaarada gargaarka degdega ah iyadoo markaasi xaruntan ay noqonayso xarun wax badan ka qabata baahiyaha caafimaad ee bulshadeena هذا دمان waxaa maanta joognaa xarig jarka xarunta caafimaadka ee Olive Clinic waa xarun loogu talagalay dhamaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho gaar ahaan dadka degan degmada wadajir oo ay ku taala xarunta oo aad uga faa'iideysan karo xarunta Olive Clinic waxaa idin kugu diyaar dhamaan qaybaha kala duwan ee dhaqaatiirta sida dhakhtarka caruurta oo anigu ahay Dr. Ramla Kalaay waxaa kaloo noo jooga dhakhtarka haweenka sidoo kale waxaa laga heli karaa dhakhtarka cudurrada guud iyo daweynta xanuunada raaga Olive Clinic sidoo kale waxay leedahay emergency department oo shaqeynayo daycare ahaan u shaqeynayo oo bukaanada xaalad adag ku jiro ku helaya gargaarka ay u baahan yihiin wuxuu leeyahay farmashiga iyo shaybaarka iyo baaritaanada guud ahaaneed sidoo kale Olive Clinic waxa uu diyaar idinku leeyahay inaad ku soo dhawaatiin gacmo furan iyo adeega u baahantiina ka wada heli doontiin waxaan rabaa furitaanka munaasabadan awgeed inaan uga faa'iideysto maanta oo aan hadiyad uga dhigo bulshada guud ahaan ku nool magaalada Muqdisho boqolka qofood ee ugu horeeyay isbitaalka timaado booqashada dhakhtarka wuxuu noqon doonaa free oo wax lacag laga qaado doono haduu Ilaahay idmo waa boqolka qofood oo ugu horeeyo waxaan rajeynayaa inay hadiyad u noqoto bukaanada iyo dadka nagu xiran ee imaan doono aniga magacaygu waa Dr. Ramla Kalaay ama Ramla Maxamed Cali Kalaay waxaan ahay takhasuskaygu uu yahay dhakhtar caruur oo waxaan ku takhasus qaybta caruurta muddana aan ka shaqeynaayo waxaan muddo 5 sano iyo bar 6 sano ku dhawaad ka soo shaqeeyay isbitaalka Yardameele qaybtiisa caruurta iyo isbitaallo kale duwan waxaan leeyahay ku soo dhawaada isbitaalka halkaan idinku soo wareegay dhammaan bukaanadii iyo dadkii ugu xirnaa waxaan u sheegayaa in maanta wixii ka dambeeya iga heli doontaan maalin kasta Olive Clinic lixda maalin oo isbuuca insha Allah waa maasantii soo dhawaada intaas kadib waxaa goobta ka hadlay Dr. Luul iyo sidoo kale agaasimayaal kale oo caafimaad iyo martiiraftii kale ee ka soo qayb gashay kuwaasi oo markaasi bogaadiyay xaruntan caafimaad ee laga daafuray degmada wadajir ee gobolka Banaadir gaar ahaan xaafadda Buulo Xubey faraxsanahay inaan ka soo qayb galnay furitaanka Olive Clinic oo ay sameeyeen dhaqaatiir Soomaaliyeed gaar ahaan Dr. Ramla oo dhakhtarad khabiir ah waqti badan ka soo shaqeysay cudurrada caruurta maanta waxaan leenahay hambalyo iyo waa farxad gaar ah hambalyo aan leeyahay xarig jarkaan iyo intee xaaladaada jecel xafladda taadahana xiisaan wada qabnaa xuma laga dhowriyay xaasidka jabo grand opening kan dadka soo qayb galay aad u mahadsan yihiin dhakhtarada waa dhakhtarada caruurteeda in badan aan ku xirnaa aan ku faraxsanahay inaan mar walba ay caruurteeda ii daaweyso aan isla socono alxamdulillah maanta heerka ay gaartay intaas in ka badan aan rajeynaa walaashay insha Allah faraxsanahay walaashay macaan Dr. Ramla Cali Kalaay oo maanta ku soo kordhisay clinic Olive Clinic oo aan ogahay kartideedii iyo say caruurta ay ugu dadaali jirtay waxaan aaminsanahay sidii ay ahayd si ka fiican inay noqon doonto insha Allah mar walba oo hambalyeynaya waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo maantay xafladan oo sharafta leh farxadda leh clinic cusub oo ay furtay Dr. Ramla waa dhakhtarad aan naqaan kartideeda aqoonteeda daacadnimadeeda iyo dadaalkeeda muddo aan soo wada shaqeynay marka
hawshan ay bilowdana waa hawl bulshada u baahneed mar kastana waxaan aragnaa iyadoo u shaqaynaysa ummaddeeda waxaan rajaynaynaa hadda in guul iyo maaragtay horumar ay ka gaarto hambalyo iyo bogaadin ugu dirayaa Dr. Ramla Maxamed Cali clinican oo Olive Clinic oo ay furtay runtii Dr. Ramla anigu waxaan wada shaqaynaynay muddo 6 sano ku dhawaad ah waa runtii dhakhtar caruur specialist ah aad u naxariis badan experience leh oo runtii in badan u soo adeegtay ubad muxuu ahaa badan oo Soomaaliyeed waxaan uga hambalyeynaa walaashay Dr. Ramla Maxamed Cali oo maanta ka hirgelisay degmada Wadajir Olive Clinic oo qaybta pediatric loogu talagalay waxaan leeyahay Dr. dadaalkan iyo ka badan waxa waay waa muteysan tahay hore u sii soco ilmaha Soomaaliyeed u shaqeynaysa bulshada Soomaaliyeed in ay u shaqeysada u taagan tahay maanta Dr. caruurteeda inay service-ki degmadeyda iigu keento maanta aad loogu baahnaay Dr. Ramla Dr. muddo badan soo shaqeynaysa waaye service-keedii Wadajir inay keento yani waxa guul u soo hooyay reer Wadajir waaye xataa intaas kadib waxaa hadalka qaatay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Wadajir Maxamed Daahir Maxamed kaasi oo tilmaamay in degmada Wadajir gaar ahaan dadka ku nool xaafadda Buuluxubay micno weyn ugu fadhiyo isbitaalka laga daafuray isagoo u rajeeyay inuu wax badan ka qabto baahiyaha caafimaad ee bulshada waxaan rabnaa galabta waxa la isugu yimid xarig jarka isbitaalkan oo degmada aad muhiim u ahaa oo cudurrada dhammaan aan rajeynayno inuu kaalin weyn ka qaato caafimaadka maadaama bulshadu mar kasta ay soo badato ay soo kororto caafimaadkuna waa soo badanaya marka walaasheen Ramla waa aad iyo aad ugu mahad celinaynaa waa gabar aad u da'yar oo dhakhtarada waxaynu ku soo kordhisay degmada kaalin aad u muhiima waa kaga mahad celinaynaa isbitaalka inaa waqti gelisay Ramla Maxamed Cali Kalaay nin odayaha qaaliyaha ku dhalay aad iyo aad aan kugu mahad celinaynaa gabagabadii munaasabadda waxaa soo xirtay wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya taasi oo bogaadisay isbitaalkan Olive Clinic ee markaasi lagu soo kordhiyay bahda caafimaadka magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxaan idin leeyahay hambalyo clinic-dan waxaan leeyahay waa clinic lagu soo kordhiyay Soomaaliya hambalyo aan leenahay anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda caafimaadka gabadhan ma ahan maxay ahayd qof dhakhtarada meel iska furtay waa qof wax baratay waa qof master ah oo pediatric ku soo takhasustay ka timid wadanka dibadiisa waxbarashadaas dibadda way iska joogi kartay waxay sacrifice u samaysay inay wadankeeda wax u qabato clinic-daana waxaan leeyahay degmada Wadajir inay ka faa'iideystaan dhammaan dadweynaha meel kasta degmada kaliya maaha Soomaaliya dalka maxaa gobolada degmooyinka meel kasto inay ka faa'iideystaan dhaqaatiirta oo maxay ahayd oo dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo khibradda ah waa maxay ahayd dhaqaatiirta waa maxaa especially gabdhaha waa farkutiriskaas ay ka mid tahay Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho